waxaan arkaa in badan oo bulshada ka mida oo niyad jabsan himmadooduna ay aad u hoosayso dhibka haystaana ugama imaan cid kale iyagaa noloshooda inta ka maqan ka dhex raadinaya qof kale tiisa haddaba aan midkuu sheego laga yaabee in ay hooyo aabba ina wada dhaleen aynu mataano nahay laga yaabee inaan isku waddan ka soo jeedno laga yaabee inaan isku qabiil nahay laga yaabee inaan isku midab nahay waxaa dhici karta inaynu labadeennuba laba maalqabeen nahay tirada carruurteennu ay siman tahay laga yaabee inaan isku dooq nahay xagga labiska carafta hooyga iyo gaadiidkaba laakiin marna lagama yaabo inaan anigii adigu isku qadar nahaye iska daa noloshaada aad barbar dhigaysid tan dadka kale ogowna soo jiidashada ama helitaanka waxa aad nolosha doonaysid inta kaa maqane kale waxay ku jirtaa in aad horta ku qanacsan tahay inta aad hadda ka haysatid oo uu ilaahay kaa siiyey aadna ku mahadinaysid rabbigii ku siiyey ku noolow go'aanadaada oo la noolow natiijadooda bini'aadamka in badanoo ka mida cabsida ku abuuran ee keentay inuu qofku horumari waayo uu waxba qabsan kari waayo waa cabsida uu isagu abuuray iyo caqabadaha isagu uu keenay ee uu ka qabo dadka kale waxa ay ka malaysanayaan adiga uun baana in fara badan xusuusane iyagu kuumaba soo jeedaan in badan oo ka mid ihi waxaana xaqiiqo ah xusuustoodu way kugu badan tahay laakiin waxaad ogaataa maalinta aad dhimatid ood adduunyadan ka tagtid bini'aadamkaasu kuma xusuusan doonaan haddaba waxaad ku dadaashaa waxaanaad ka cabsanaysid ku dhaqaaq oo samee oo horumarkaaga ah waxaan shaki ku jirin horumarkaagaas ayaa kaa hari doona wuxuuna noqon doonaa waxa in fara badan ay kugu xusuustaan inta badan fulayga lama xusuusto ee geesigaa la xusuustaa haddaba noloshaada yaynan caqabad kugu noqonin bini'aadamka kale fakarkooda iyo waxa ay kaa malaysanayaan taas ayaadna ku gaari kartaa horumarka dhabta ah ee la taaban karo haddii aysan geesinimo kugu jirin waxba nolosha kama midho dhalin kartid haddii aadan dulqaad lahayn waxba noloshan kama midho dhalin kartid haddii aadan ahayn qof 100% diyaar u ah in uu wajaho meesha uu doonayo noloshiisa inuu isbeddelka kaga sameeyo way adag tahay in aad horumarkaa gaartid ama aad samaysid markaas ayaadna dareemi karaysaa nolosha macaankeeda aadna ku raaxaysan kartaa go'aanadeeda iyo qaababka aad adigu u wajahdid keligaa